والله مهرجان وينو أها أو كونتن دولدود أو عالم كه سومالينا أي كجرتي وزارة إسبورتي وحي قرتي إن أنا ماشي ومثله ما دام أنا وكيل كهاي وزارة إسبورتي إنه مثله مع أمد الصومالية أنكم مثله شركة طائف وعنو أها حرير كعيارها ترتن كجيلة Nene baby dance Mustafa Shano intii waxaan wanaagsan khiyaarta hawada naga daawanaysa idil ahaantiinba meel walba oo dunida ka joogtaan kuna soo dhawaada barnaamij kooban oo aanu kaga hadli doono sportska Soomaalida barnaamijkan waxaa marti igu ahaa isla markaana igala qayb galaya hogaamiyihii hore ee dhinaca farsamada ee kooxdii Shabeellada Dhexe sanadii 1986 ku guuleystay koobkii kooxaha gobolada Soomaaliya Abdi Samed Haji Ahmed Jilibey عبد الصمد كسودو برنامج كمرهورة وما حسنتها اللي بنقوله أن عبد الصمد سودو وين كذب أن مركهورة محد نو شيء كرتا تاريخ نورلات كاغا والله وما حسنتها فرصة أساسية وعن كل شيء مقالة الجوهر دوسي جيجا هوس لحاء يسرع شباب سكندري سكول كدمنا وحان نقضي معلن بي تيجر وعيارها markaan ka soo baxay soo qalin jibiyina waxaan noqday wakiilka ciyaaraha dugsiyada degmada Jowhar kadibna ugu dalacay wakiilka ciyaaraha dugsiyada gobolka Shabeellada Dhexe hadda Abdi Samed xaliyan waxaad sheegtay tahay wakiilka guud ee jaaliyadda Soomaaliyeed oo qaabilsan dhinaca wasaaradda sportska Soomaaliya ee wadankan wakaalada ayaa ku siiyay goormaas lagu siiyay wallahi laba kun iyo sagaal iyo tobankii Felix June dikreetadii wasiir wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga madam Khadija Maxamed Diiriye iyo magacaawday in aan wakiil ka noqdo wasaaradda wakiil u noqdo wadankan Soomaaliya sida aad ogtahay amaba idilhaanteen baan ka dharagsanahay hadda waxa ka jirta dawlad federaal ah andaban dawladuna waxay leedahay safaarado iyo qonsuliyado iyada ku matala wadamada dibadda ka ah Soomaaliya garan halkaan hadda joogno oo kale magacaabistaadii kadib wasaaradda ogolaansho ma kaga heshay dhinaca qonsuliyada caamka ee magaalada Jidda waa si fiican way u soo dhaweeyeen hase ahaatee opportunity wuxuu ahaa fursadii koowaad in tartan oo weligiis aan dhicin oo jaaliyaadka degan Sacuudiga dhexdiisa in maaragtay aan ka mid noqonay 22 koox oo wadankan ay ku jiraan tartan loogu magac daray wasiirka arrimaha dibadda Allahu naxariiste Sacuud al-Faysal alxamdulillah kaalinta labaad ka galnay Eritrea birima gashay annagana kaalinta labaad ka galnay waa gartay waxaa jirtay in mar aad ka qayb gashay shir ay ka qayb galayeen in ka badan wakiilo ka kala socday ilaa 50 dawladood laguna qabtay magaalada Daif yaa shirka kugu marti qaaday hadii aad ka qayb gashana maxay ahayd wixii ka soo baxay dadka Soomaalida sportska xiiseeya ay filan karayeen wallahi maharjaan weyn oo ahaa oo 50 dawladood oo caalamka Soomaalina ay ku jirtay wasaaradda isboortiga waxay garatay in aan meesha ugu mathalo maadaama aan wakiil ka ahay wasaaradda isboortiga inuu u mathalo magaca ummadda Soomaaliyeed aan ku mathalo shirkaas Taif wuxuu ahaa xiriirka ciyaaraha tartanka geela go'aamadii ka soo baxay shirkaas ay ka soo qayb galeen tirada inta leeg ee wakiilada ay ka kala socotay dalal kala gedsan wixii ka soo baxay ee asleedahay dabcan wax weyn ay u kordhin karaan jaaliyadda Soomaaliyeed gaar ahaan qaybtooda sportska maxaad nooga sheegi kartaa wallahi natiijadeeda waa in xiriir Soomaaliya aan ka jirin waaye geela runtii aad ugu sahlan tahay in maaragtay xiriir geela laga sameeyo maadaama oo adduunyada dadka ugu geel badan aan nahay shirkaas asiga waxaan sheegay geela inaan qalanno oo caanaha ka cabno laakiin aan ku tartamin marka waxay yiraahdeen waxaan idinku dhiirigelinaynaa inaad ku tartantaan waa
balantaas waxaa noo qaaday maaragtay mas-uuliyiinta waddankan. waa gartay dhinaca kale sidoo kale waxaa jirta inaad mar ka soo muuqatay garoonka kubadda cagta ee jowhara ee magaalada jidda oo dabcan ah garoon international ah xilligaas oo ay jireen ciyaaro ay koox soomaali ah la ciyaarayeen dad u dhashay ama ciyaartooy ka socotay waddankan ciyaarta ay isku arkayeen labada kooxeed kooxda soomaalida iyo kooxda dalkan hadda aan joogno yaa lahaa xiriirkeeda maxayse risaalo ah oo ay gudbinaysay marka loo fiiriyo ra'yigaaga? su-aal fiican waaye liban kuulow. annaga markaa fiiriso jaaliyaadka inta waxaa moodaa inay aad ahmiyadna loo siiyo soomaalida haddaan nahay, iyadoo taa ay jirto haddana xiriirka kubadda cagta ee sacuudiga mas-uuliyiintoodii maxamed nuur sida laacibka qadiimka ah oo legendiga ah koox oo watay aan kula ciyaarnay jowhara. tartankaas asiga ah waa mid maaragtay nalaga soo sokomariyey jaaliyaadka kale. kadibna ciyaarihii kale tournamentigii kale oo wasiirul khaarijiya loo dhigayo koobka labaad aan ka qaadaynay ayaaba ka qayb galnayba oo jaaliyaadka dhan. marka aad bay u mahadsan yihiin itixaad kurat alqadam oo waddankan aad bay u mahadsan yihiin, waa aad ugu mahadsan. dhinaca kale Mr. Jilibey inkastoo ay jiraan kooxo badan oo kala gedisan oo ka dhisan magaaladan marka ay timaado dhinaca sportska, haddana waxaa jiri jiray in ay jiri jireen fursado dhalinyarada soomaalida ay ku nool waddankan ay kaga qayb galaan munaasabado waaweyn, xaflado, tartano kala gedisan sida koobka jaaliyaadka africa oo kale, kii carabta iyo koobab kale oo aan tiro lahayn. hadda laakiin waxaa muuqata wixii oo dhanba inay habaan mansuura noqdeen. xaggay wax ku dambeeyeen? maxaa isbedelay? goormayse la filanayaa in dib wixii oo kale ay usoo noqdaan? waa barasharkaas adduunyada dhan uu saaran yahay oo waxa waaye covid-19ka dartiisa ayaa xoogaa yar maaragtay hakad aan u galnay, walow ay jiraan maaragtay rajooyin oo ramadaanka lagu xurmaynayo in maaragtay kooba ramadaano weligeed waa la ciyaari jiray. sanadkii hadda laga soo tegay laakiin covid-19 dartiisa lama ciyaarin. taas waxaan ilaahay ka baryaynaa marka in uu caafimaadka ilaahay noo sii zaa'idiyo oo ka qaybgalkii tournamentskii caadi ay usoo noqdaan. taasaa ilaahay ogaanta adiga intii aad ogeyd dabcan dhalinyarada soomaalida ay ku dhalatay halkan sportska daneeya guulo intee la eg ayay kasoo hoyeen baa isleedaha ciyaarihii ay kaga qayb galeen magaalooyinka kala gedisan sida magaalada madiina oo kale oo ay mar koox soomaali ah guulaysatay. bar marka aad fiiriso guulaha ay gaareen tir ahaan iyo tallaabada ay qaadeen maxaad ku micnayn kartaa? wallahi khibrada ugu zaa'iday waddankan 13 sano ka hor markii wasiirad khadiija maxamed diiriye sheekh shariifna madaxweyne uu ahaa horta halgankan aan bilownay. أمير ماجد واتي لو عياري جري جدا كدبنا وحال لو قدي إن منطقة كله مدينة المنورة هي مكة المكرمة إلى هو خيب قلنا ترتمى بدن وجاليات تاسلو حنو قدي رجلي وزير ده نقول دي رجلي شيء وحتى هو خيب كشيء انترفيست أهان يدي رجلنا أهان يدو حمر جوكت باي تليفون هو خيب كشيء ترتم فينا لها مركب والله guulo fiican la taaban karo waxaa jiro dhalinyaro badan oo sacuudiga dhexdiisa ku dhashay in maaragtay ay qaataan raatib ku qaataan lacag ay ku qaataan. taasna waxa waaye waxaa keenay ayagoo yaraantoodii bilaabay oo mucaskar maaragtay galay oo maaragtay akademiya mucaskar ah. marka wallahi waa niyadda aaday nagu dhisan tahay haddaan nahay soomaalida. waa gartay Jilibey inkastoo aad tahay wakiilka caamka ah wasaaradda sportska ee Soomaaliya halkan u fadhiya, haddana marka hoos loo daadego dabcan waxaa jira halkan kooxooyin badan oo kala gedisan sidaan hore u sheegay. kooxahaasi dabcan waxay leeyihiin hormuud, guddoomiyaal, gacanyarooyin iyo maamullo kala gedisan. adiga ka wakiil ahaan xiriirka aad la leedahay guddoomiyaashan faraha badan ee xaafadaha kala matala ee kala gedisan sidoo u eg yahay? xiriir noocee ah ayaa kala dhexeeya? horta waxaa dhisan guddiyo badana dhisan oo hormood ka yahay guddoomiyaha jaaliyadda kubadda cagta awees amiin cabdallah iyo odayaasha isboortiga oo legendiska ah
oo berisamaadkii qaranka iyo u ciyaari jiray kooxaha heerka koowaad sida cali maxamed colaad cali baashi runtii meesha ugu sarreyso xaafadda ugu sarreyso oo maaragtay lagu ciyaaro waa Sharbadle ugu yaraan adiga ilaa 450 ciyaartooy tirkoob ah ayaa joogta oo kooxa kala gedisan ah runtii waxay leeyihiin ahmiyad oo maaragtay waddankoodii inay ka ciyaaraan xulkooda qaranka inay kaalmeeyaan haddana waxaan ku tali jirnaa kubadda cagta kaliya maahe kubadda koleygana inaan bilaawno mar dhow maaragtay ololeeda inaan bilaawno dhowaan haddii allah awood ile uu raalli ka noqdo waxaanu fooda la galaynaa bishii barakeysnada ramadaanka ramadaankuna dabcan ka sukow cibaadada haddana waxa ay bisha ramadaan macruuf ku ahayd in la qabto habeenkii wax la dhihi jiray jironi hadda ma laga yaabaa in la qabto haddii ay suuragal tahayna jironi nooce ah ayuu noqon doonaa wallahi waxaan ka warsugaynaa guddiyada isboortiga oo magaaladan aan ku noolnahay Jidda iyo wasaaradda sixa haddii tasriix noo sameeyaan oo maaragtay iyo hab maaragtay aan ku ciyaarno aan ku tartanno waa ka qayb galaynaa haddii ilaahay wasaaradda aad wakiilka u tahay marka loo fiiriyo mujtamaca Soomaalida ku dhaqan waddankan gaar ahaan da'yarta danaysa sportska qorshe nooce ah ay ka leedahay wasaaraddu ma jiraan wax mashaariic horumarineed dhinaca sportska oo aad kala xiriirtay wasaaradda guud ahaan gaar ahaanna wasiiradda maadaama aad tahay wakiilkii wallahi hadda kulleyba waxaa lagu jiraa campaign doorashaa lagu jiraa wixii oo dhan waxay noqdeen maaragtay wax isla cakirinay noqdeen marka insha allah bacda rasabti oo maaragtay doorashooyinka dhinacay u dhacaan waxaan jecelnahay future planningkayna in workshopyaal badan maaragtay dhinaca wasaaradda maaragtay aan ka codsano iyo inaan u gudbino wixii maaragtay talenti good talenti in aan u gudbino xiriirka kubadda cagta wagaag Mr. Jilbey ugu dambeyntii maxaa fariin ah oo aad jeceshahay inaad hawada u mariso guud ahaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan jaaliyadda Soomaalida ku dhaqan boqortooyada Saudi Arabia waliba si qaasa da'yarta danaysa arrimaha sportska wallahi welcome aan leenahay kuwa inta jooga meesha haddaan ku noolnahay jooga guud ahaan ummadda Soomaaliyeed waxaan maaragtay dhihi lahaa kubadda cagta iyo kubadda koleyga iyo kubadda miiska waa isku hal waa events oo isla jin ah ilmaha haddaad ku carbinaysaan ayagoo yaroo 6 jir ah hiwaayadooda oo maaragtay kaalme waalidiinta saasaan leeyahay academy maaragtay ka soo bilaabanaan ilaa wahagaag aad buu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa Mr. Jilbey wakiilka guud wasaaradda sportska ee Soomaaliya u fadhiya waddanka boqortooyada Saudi Arabia taniintan dib dambe barnaamijkan oo kale ah oo weliba xiiso leh aan mar kale haddii allah uu duli u raalli ka noqdo dib mar kale hawada ugu kulmi doono aniga iyo Mr. Jilbey waxaanu idin leenahay Ramadan Mubarak